guddi hoosaadka dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo golaha wakiilada ayaa kulan muddo saacada qaatay waxa ay la yeesheen wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Saad Ali Shirey oo ay wehelinayaan agaasimaha guud ee wasaaraddaasi iyo xubno kamid ah saraakiisha kala duwan ee wasaaraddaasi ka howlgala kulanka oo muddadii u socday saxaafaddu ay dibadjo ka ahayd ayaa markuu soo ilaaday waxa warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Saad Ali Shirey waxa uu sheegay in kulankaasi ku soo dhamaaday safgarad isla markaana laga hadlay arrimaha maaliyadeed ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland waana ka wasiirka horumarinta maaliyadda Jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Saad Ali Shirey oo arrimahaasi ka hadlaya waxaanu halkan kulan iswareysay kula yeelanay guddida back la yiraahdo ama dabagalka maaliyadda qaranka waxaan iska wareysanay hawlo fara badan wada hadalkaasna wuxuu noogu dhacay jawi aad iyo aad u wanaagsan inuu gudanayna xilkayaga ilaa 3 saacadood iyo barbaan u maleynay ayuu nagu qaatay si fiican waanu isu fahanay wada shaqeyn wanaagsan way naga dhaxaysaa insha Allah halkaas baanu ka sii wadi doonaa waxyaabo badan baanu dul maray oo isdul taagnay oo ku saabsan cashuuraha iyo maxay yiraahdeen wixii jiray mataqaan xagga khadamaadka ay wasaaradaha qaadan hay'adaha qaar ay ka qaadan dadka shirkadaha aanu la leenahay macaamilka iyo kontraatyada ugu badnaa runtii tacriifaadka miisaaniyadda way badnayd